haddaba walaalahey qaaliga waxaa dhacday in wiilkii iyo gabadhii ay wada noolaadaan muddo 6 sanadood. 6 sanadood ayaa waxay ku noolaayeen boyfriend. gabadhan waa gabar Talyaaniyeed ah, wiilkana waa wiil Soomaali ah. wiilkan iyo gabadhanna waxay barashadoodii ay ka bilaabatay wiilkan kaamki markaas asaga uu deganaa ee uu joogay uu sharci sugaha ku ahaa ayaa gabadhan waxay ka ahayd shaqaalo oo markaas shaqadeedana ay tahay qolyaha maqaayada laga cunteeyo ka shaqeyso, yacni cuntada ayay bixisaa gabadhan. meeshaas ayay ka bilaabatay barashadoodii. 6 sanadood ayay wada noolaayeen. 6daasi sano meeshana waxaa imaan doono caruur. haddaba waxaa dhici doontaa 6 sano kadib wiilkan in xaas uu lahaan jiray ay kulmi doonaan. kulankaas dhibaatooyinka uu sababa dartooda ama darteeda uu ku weyn doono caruurtii markaas uu ka dhalay gabadhii Talyaaniga ah. haddaba maxay taa is leedahay dhibaatadaas intaas kalifi karto noloshiisiina maxaa u dambeyn doono, gabadhanna sidee ku imaaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قالي أي كحرن جلكيك منيزة meel walba adduunka ka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajayna. fadlan haddii ay tahay marka ku horeysa ajalkayga soo booqanayso waxaa ka codsanayna subscribe ii saarto, gambaleelka aad furto, muuqaalka like aad saarto, asxaabtaada u share gareyso, wixii ra'yigaagana hoos aa noogu reebta. aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina, walaalihii cusub iyo walaalihii hore ila joogi jir dhammaantiina, asxaabta i dhiirigelinaysa oo idhahaysa Muneza fiidiyoyada soo badiy, fiidiyoyada soo geli. aad iyo aad u mahadsantihiin. mararka qaar waxaa dareemaa in aad tihiin maxay ahayto dad aanan ka maarmi karin xitaa inaa maalmo ama maalin aa ka maqnaado. aad iyo aadaan u mahadsantihiin walaalay qaaliga ah. jisadiina jannatul firdaws mar walba Allah ka dhigo. maanta waxaa idin wadaa qiso aniga aad iyo aad iiga yaabisay, dhibaatooyin badanna dhexdeeda ku dhex jirto, waxyaabo badan markaas looga waantoobana ay ku jiraan. wiilkan sidoo horta ku yimid waaye Yurub uu Talyaani uu kusoo gaaray. haddaba qisadeena gadaal ayaan u celinaynaa walaalahayga qaaliga ah. waxaa dhacday wiilkan intuusan horta imaanin Talyaaniga wuxuu ahaa shaqsi ku nool waddankeenii Soomaaliya ayuu ku noolaa. wiilkan waxaa jirtay gabar ay aad iyo aad isku jeclaayeen oo markaasna iska barteen meel aroos ah. arooskii markay iska barteen kadib wiilkan waa wiil dhalinyaro ah oo da'diisana ay yar tahay oo aanan ahayn qof shaqeeyo amaba wax soo bartay oo la dhahayo qofkan waxbuu soo bartay ama waxbarasho heer dugsi sare ha ahaado ama heer jaamacadeed. ninkan wax iskuula uu soo dhameeyey oo professional uu ka leeyahay, shaqo ahna ma laho. maxaa yeelay markiisa hore ayuuba ahaabo ciyaal iskuul diid ama waxbarasho diid. wuxuu ahaa wiilkan wiilasha yacni waa iska ogtihiin galbi iska labisanayo, xaafadaha shukaan soo aadayo, laamiyada shukaan soo aadayo ayuu wiilkan ka mid ahaa dhalinyaradaas. haddaba waxaa dhacday gabadhan inay isku bartaan meel aroos ah. gabadhii markii la isbartay kadib waxaa dhacday in labadoodii ay isjeclaadaan, aad iyo aad la isku jeclaado, laguna heshiiyo in la isguursado. haddaba walaalahayga qaaliga gabadhan wiilka uu jecel yahay da'deeda waa 15 sano ayay jirtaa. waa gabar aad iyo aad u yar. xilligaasna yacni dadkeenii Soomaaliya khaasatan gabdhaha haddaysan wax baranaynin waxaa jiri jirtay haddii xitaa wiil ay isjeclaadaan isla markii yacni hore laga guursado. dad waxaa arkaysaa 17 sano jiro 2 caruur 3 caruur haysto. waa 17 sano 16 sano 2 caruur haysta arkaysaa Soomaaliya haddii aad fiirisid. gabadhan marka da'deeda aad iyo aad u yar tahay. kadib markii ay ku heshiiyeen inay isguursadaan, wiilkii waalidkiisa ayuu u sheegay. waalidkiina waa ay soo baxeen oo gabadhii ayaa wiilkan loo soo doonay. gabadhii markii loo soo doonay reerkeedii waa ay ka diideen in gabadhoodii wiilka ay ku daraan. sababtana waxay tahay wiilkan marka hore xitaa haddii uu gabadhu dhaho waan guursanaa, shaqo uu ka shaqeynayo ma laho, mas-uuliyaddeeda ma qaadi karo, waxay ka rabtaa biil مصروف marahay xireyso malaha marasho malaha miya ma aqaano. asagay ka rabtaa ee mas'uuliyadiisa tahay guri ijaarkii markaas ay galayaan ijaarkii inuu asaga bixiyo.
hadda intaasoo mas-uuliyadood aad dushiisa soo korayso caruuraa imaan kartaa, caruurtaas mas-uuliyadooda yaa qaadayo. saas daraadeeda waalidkii waa ay diideen. sababta kale ay ku diideen waxay ahayd gabadhoodii oo ahayd gabar aad iyo aad u yar oo 15 sano jirto oo weliba xilligaas ahayd gabar arday ah oo iskuul dhiganayso. gabadhan iskuul ayay dhigataa, iskuulkeedii waxbarashadeedii ma ahan qof xitaa dugsi sare kasoo baxday. sidaas ayay ku diideen gabadhii waalidkeedii. haddaba waxaa dhacday in banaanka layska shushuqaansado wiilkii iyo gabadhii, laguna heshiiyo in laysla baxsado, laysboobo. markii laysboobo kadib ilaa mar haddii laysboobo 7 laysla galo, waalid waxay diidayaan malaho, ilaan wax la diida malaho. mar haddii gabadhaadii oo nin uu la baxsado uu lasoo baryo, yacni gabarnimadeediina meeshaas ayay ku baaba'day. adigana yacni wanaag kuma ahan in aad ka daba laalaado ama aad ka daba qaqayliso. dantana markaas waxay kugu jirtaa in markaas aa ugu duceysid oo ama maxay ahayd aa ku deerisid labadaas adig markaas ay kaa falantaa. labadoodii arrintii laysku maxay ahayd oo afkartay, waxaana la go-aansaday in laysla baxo. wiilkii lacaga yaroo habarta guriga u yaaliya xuguf lasoo siiyey waa lasoo qaatay, waa lasoo meersaday. waxaa la aaday maxay ahayd oo meelihii laysku meersanayay, markaas kilomitir ka fog familka gabadhan meesha ay degan yihiin. yacni qofka markii uu gabadha la baxsanayo, qofka markaas waalidkeeda ama adeeradeed ama aabaheed kilomitir waxaa jiro kilomitirkaas ka fog inaa markaas yani xalaal ay ku tahay in aad kusoo mehersan kartid, uu meherkaas yani maqbuul ama uu ku noqon karo mid ansax ah. haddaba gabadhii wiilkan wuxuu la soo aaday meelaha laysku soo meersanayo, uu la soo aaday. markuu soo meersaday kadibna usoo waday calaatuul wuxuu keenay guriga hooyadiisa. hadda meel kale ma haysto uu gabadhii geeyo amaba uu dejiyo. reerkii gabadhii markii loo keenay qolaa looga baxay, meeshii maxay ahayd oo la dejiyey maadaama ay noqotay haddana wax kusoo booda ah. waagiyaa baryey, maalinkii labaad ayaa gabadhii reerkeedii la aaday si loogu sheegay in gabadhii ay reerkan soo jirto oo yacni ay ka murug la-aadaan wixii maanta ka dambeeyo. markii ay soo baxeen kadib gabadha familkeeda ay u imaadeen, aad iyo aad horta uga xumaadeen familkii gabadha. maxaa yeelay gabadhooda arrinta ay ku kacday waa arrin aad iyo aad yacni ay uga xumaadeen. maxaa yeelay kelmadoodii ay jibisay, go-aankii ay gaareen ay jibisay, waxay ka dhigtay hadalkoodii hadal raqiis ah, sharaftoodii meel oga dhacday. inkastoo xitaa waxaan adiga ah uu jecel yahay, ma fiicno waalidkaaga hadalkiisa in aad ka boodo. mar walbana waalidka wuxuu fiiriyaa, wuxuu arkaa waa maslaxadaada, ma ahan wax adiga khasaarahaaga ah. waalidkii way ku qasbanaadeen in markaas arrintii ay ka ogolaadaan. maxaa yeelay waddo kale ma haystaan ooba u banaano. mar haddii gabadhaadii uu ninkaa guursaday lala soo bariyey, gabarnimadeediina meeshaas ay ku baaba-eyso, waxa adi markaas uga daba laalaado yacni qalad waaye. laba mid adigay kaa falantaa, inaa ugu duceysid ama inaa ku deerisid, waa labadaas mid. waalidkii arrintii waa yihedheen, ilaan wax kale ay sameeyaan ma laho. gabadhoodiina waa ay jecel yihiin, wax kale ay ku qabtaan ma laho. sida ayay ku ogolaadeen. gabadhii 7 loo dhigay, ciddii gurigoodii qol ka mid ah gabadhii jeef yar leh loo dhigay, wax kale xitaa looma dhigan. sariiro yar daahoo yara loogu wareejiyey. meeshiyaa gabadhii sidii 7dii loogu dhigay, qolkaasaa loo hagaajiyey. familkeedii waa u tageen, waajibkii waa iska soo rideen oo ka famil ahaan. hooyadeed waxay dhahday maanta wixii ka dambeeyo wixii kugu yimaado aniga mas-uuliyaddeeda ma qaadaayey. berito haddii aa caruur dhashidna caruurtaas haddii lagugu dayaco amaba lagugu deeriyo amaba lagugu furo, albaabkeyga ma kasoo gelin kartid ay dhahday. intaas waa iga waano. maxaa yeele waxay tiri nin aanan shaqaynayno oo aadan shaqo ku ogeen, guri gooni aanan ku dejin karin, noloshaadii sida aa rabtid yacni kuu yeeli karin, maradii soo baxda ama dharkii soo baxa aanan kuu gedi karin. qof yaraatay tir aroosa laguu soo diganaa, meel walbaa laguu soo diganaa, waxyaabo badanaa aadaysaa. intaasoo dhan asagay dushiisa noqonaysaa. asaga intuu ka keenaa meelna, yacni waa qof asagaba familkiisa ku dul nool. canjeeraduu asaga cunayaa la cunaysaa, bariiskuu asaga cunayaa la cunaysaa. marka waa inaa adiga aad dulqaadkeeda yeelataa. tilaabadan aa qaaday war waa loo dhameeyey gabadhan. waalidkii waa ay soo baxeen. haddaba waxaa dhacday gabadhii in markaas 2 sano ay wiilkii isqabaan. 2 sano ay isqabaan. gabadhii hal cunugee u dhashay. cunuga markay u dhashay kadib wiilkan waxaa galay buufis.
maxaa yeelay asxaab markaas asaga ay saaxiibo ahaayeen soo wada baxeen oo qaarkood yurubtan kala soo galeen qaarkood talyaaniga soo galeen waa iska ogtiin dhalinyarana waa lasoo sawiraa meelo qurqurxana layska soo sawiraa qofki markii uu africa joogo yurub wuxuu u maleeyaa wax yacni nooc kale intuu u maleeyaa uu ka aaminsan yahay haddii hadallo loogu sii daro oo la dhoono meeshaan khatar waaye waa kala kacsan tahay inta waaye saan waaye yacni lacagta waa helaysaa nolol qurux badan qofkaas maxaa ku dhacaayo qofkaas hamigiya kasoo dhacaayo wax walba ma arkaayo waxaa u muuqdaa asaga waxaas la sheegayo inuu soo arka keliya u muuqato haddaba waxaa dhacday wiilkii inuu intana ma u baxaayo dhaho intana ma u baxaayo aniga waa baxa halayga dir meeshaan gabadhii waxay dhahday haddii aa baxdid annaga yaa noo dad ah markaasaa wuxuu yiri hooyadayaa la nooshahay cunugeenana meeshaanoo noogu noolaana uuna muxuu ahaye ku koraa anigana markii aan taga xaggaas waa ku soo dacwoonaa waddankiina waa kaa wadaa oo waxaan ku geenaa markaas waddankii aan aniga sharciga ka qaato adiga iyo beebigeenaba waa ku wadaaya gabadhii arrintii yacni way ka diidi waalidkeeda xitaa u bandhigtay laakiinse waxay dhaheen annaga shaqo kuma lihin shalayto adigaa go-aankan qaatay maantana dulqaadkeeda waa inaa adigi lahaataa gabadhii lagu soo dhahay gabadhii markii sidaas lagu dhahay maxay sameynaysaa gurigeedii ay kusoo laabatay gurigeedii markii ay kusoo laabatay kadib wiilkan guri markaas oo goof iyo meelo waxbaa loo soo gadgaday wixii markii loo soo gadgaday wiilkii sida ayaa lagu soo diray markii uu soo baxay kadib waa soo tahriibay waa soo jabiyay waa soo waxeysmay adiga wuxuu kasoo baxay maxay ahayto eritrea sudan libiya ugu dambeyn wuxuu soo galay waddanka talyaaniga wiilkan talyaaniga markii uu soo galay kadib asaga ma ahayn dadkan xilliyadaas oo wiilkan soo galaayana ma ahayn xilligan oo hadda dambe oo magafaha aadkii aadka u badan yahay oo qofka biniaadanka meel walba lagu xirinayo la dhahaayo maxay ahayto lacagaa lagaa rabaa isfuro ama madax furasho keen qof kale laga sii gadanayo iyo waxaas dhan ma jirin wiilkan ilaaha wax walba yaa sahal uga soo dhigay ilbiriqsiyo kusoo dhaafay talyaanigii uu soo galay talyaaniga laakiinse markii uu soo galay cunugii wuxuu iska noqday cunug xoogaa iska xanuunsan jawigiina xoogaa wuu la qabsan waaye haddaba waxaa dhacday kaamkii markaas sharciga uu ku sugayay interviewgii uu ku maray uu ahaa yacni xilligaas sharci suge yacni sharciga markii uu qaato kadibna process kalentoo maraa markaas ayagaa u sheegayo dadkii kaamkaas mas-uulka ka ahaa wixii markaas uu sameyn lahaa haddaba waxaa dhacday wiilkan in ay isku bartaan gabar ka shaqaynaysay kaamka shaqadeedana waxay ahayd dadka cuntada bixiyo xilliga qadada xilliga quraacada xilliga cashada waa dareemi kartiin xilliyadaasaa waxay ahayd qofka maqaayadda fadhiso oo cuntooyinka bixiso gabadhan waxay ka heshay wiilkan ayay ka heshay cuntooyinka qaar wiilkan ma cuni karinay ahayd ma yaqaano maadaama wiilkan uu ka yimid soomaaliya cuntooyinka qaar meelaha laga cunaayana maqaayadaha oo kaamamka aysan isku dhanag ahayn isku si ahayn qof cunto soomaali soo bartay marka ugu horeysa ma la qabsan kara markuu kaam soo galo cuntooyinkooda marka waxaa jirtay gabadhan inay gacan u yeelan jirtay caano u keeni jirtay rooti iyo muxuu ahay tooni iyo waxyaabahaas ay u keeni jirtay galabkii oo kale markii ay bixayso way wadaysaa suuqyaday geenaysaa fruitis iyo waxyaabahaas yacni qudaar inay usoo adeegto ayay usoo gedi jirtay kadibna bac ugu soo shubi jirtay kaamkiisay kusoo celin jirtay markay kusoo celiso kadibna meeshiisu asaga iska seexanaa qado quraac shakaamkaasoo ku leeyahay meeshaas uu seexanaa ilaa iyo sharciga oo uga soo bixi doona haddaba wiilka waxaa dhacday in horta oo sharcigii oo usoo baxo sharcigii markii uu usoo baxa kadibna la dhaho kaamkii waa inaa isku tashataa oo kaamkan aa ka baxdaa ama shaqo raadso ama maxay ahayto guri raadso talyaaniga badankiisa saas waaye hadda xiliyadan dambe waxaa maqlay xitaa in oo qof laga yaabo in guri la siiyo laakiinse xilliga hore maba jirinbo guri wax la dhahay qofka haddana haddii oo single oo keligiisa uu yahay lagama biyaabo in naxariis loo sameeyo haddaba wiilkii markii sidaas lagu dhahay oo sharcigiisa usoo baxa oo gacanta laga saaray oo la dhahay kaamka noo firaaqey oo bannaanka nooga bax maxaa yeelay booskaaga qof cusub ayaa lagu soo wareejinayaa wiilkii meel uu tala ka bilaabo waaye arrintii wuxuu u bandhigay gabadhii markaas asaga ka heshay ee jecleed ee talyaaniyadda ahayd gabadhii fikir waxay usoo jeedisay waxay dhahday
aabahe ayaa kambaanyo leh. Kambaanyo waxaa la yiraahdaa meel oo banaanka ka baxsan, yacni xaafadda dhexdeeda ma ahan. guryo ma arkin oo dadka oo xanuunada qaba ama maxay ahayd xilliyada oo inay rabo maskaxda inay degsadaan oo banaanka ku yaalo, guryahaas ayuu leeyahay tiri. waxaana ku yaalaa beeradaas oo ah beeryaashaas soomaaliga xoogaa yaris asxaabe iska dulqaata. canabka waxaa usoo baxay dhahda qudaar, olivada, waxyaabahaas ayaa usoo baxaa. marka aabahe ayaan shaqo kaaga qalqaalinayay tiri, meeshaas ayaana degaysaa aniga iyo adigane wixii markaas aa kuu soo bandhigo inaa iga ogolaatid. wiilkan wuxuu u sheegay ahayd in uu kasoo tagay gabadhiisi markaas inay cunug u hayso, xilliguu kasoo tagayna gabadhi ay uur lahayd, ayadana gabadhii shuruud ayay soo hordhigtay. haddaba walaalahey qaaliga muuqaalka aada ugu dheeraada intaa kusoo gabagabayna maxaa dhici doonaa, shuruuddaasna maxayse noqon doontaa muuqaalka kale insha allah ku daawada. intaa muuqaalka mid lamid ah ku kulmi doona maxaa idinkaga sii tagaa. haddaan ugu cusubtahay subscribe noo saar, muuqaalkana like iska saara, free waaye, anigana dhiirgelina ii tahay. aad iyo aada umaadsantihiina idin leey walaalahey qaaliga ah. insha allah qaybteedii kalo iyo la socod wanaagsanaa idin leeyahay. wixii ra'yigiina iyo wixii ka dhici doono qaybta kale idinkaa arki doontiinaan ku dhahay. laba isdaydaa la weynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.